سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا سعد. سؤال kale iyana xiirxiirnimaadkan foodadheerannimada iyana ka warramaysa waa iska garanaysaan un dee horta qofka bini aadamka ah yuu ku daydaa su-aashayaa ka jawaabaya suuqa hargeysa intaad marto mid waalanoo xashiish cunaya haddaad aragto oo raamaysto kudaafadda fadhiya bas odhanaysa alla ile sidiisa isu ekaysii maya waayo waad xaqiraysaa socaynkaa maaha markaad is leedahay cod ku daya ayaad ku dayanaysaa cidaad is leedahay way ku dhaantaa ama waxbuu ku dheeriyay ama aad cid isbidaysa baad is leedahay iska dabagee socaynkaa maaha dee waxay ahayd qofka muslimkii nebi maxamed iyo saxaabadii iyo kooxda inuu iska dabageeyo cidda aad adigu kuu ah misaalka sare ee la rabay inaad ku dayataa waxa weeyaan nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyo saxaabadiisa iyo dadkii saalixiinta iyo ummaddii wanaagsanayd ama wiil yaroo kubadda laada ama filim dhiga ama kudaafad kale ah kudaafadaha caalamka maanta tviyada laga soo muujiyo mid ka miduuna oo dhafoorada xiirtay haddaad aragtay inaad adna waagu markuu bariyo dhafoorka soo xiirataa waa iska dullinimo yani waa shakhsiyad la'aan waa adigoo aan lahayn identity aan wadanin waa adigoo aan qof jira ahayn haddaad si fiican kaa yar u daraasayn lahaydna kumaad dayatayna waad ka cadhoon lahayd yani noloshiisu noocay tahay ama siduu u fakerayo ama caqliga ku jira inta uu leegyahay laakiin rag baa ku xoogsanaya maadaama ay bahashii xoogsi noqotay wiilkaa yare ciyaala suuqa ah ee la yidhi adinkaagaad 40 milyan ku qaadanaysaa rag baa ku xoogsanaya dadka ku waalaya calaa kulli xaal dhafooro xiirxiiratu sharcadu waxay noo tilmaamaysaa madaxa in la wada xiiro iyo in la iska wada gaabiyo iyo in la wada daasto wax ka dhexeeya ma jiraan qazacu tii soomaalidii baadiyuu samayn jirtay berigii hore waa dhoorra odhan jirteen laakiin imika dhoorranimadaa jeceshiin yani berigii hore reer miyiga waa xaqirayseen markaad aragto inan yaroo miyi ka yimi oo dhoor leh waxaad arkayseen ilmo yaroo dhoorra ah inuu yahay oo yani qof reer baadiyey laakiin dhoorro yaroo kristana markaad aragto oo magac kale la baxay waad kaga dayanaysaa yani waa caqli laawanimada soo kordhay mu'tamarka yaganina wuxuu daaran yahay in gobolada lagu tartasiiyo wax soo saar oo aan la odhanin annagu reer qudhac baanu nahay annagu laandheeraanu nahay idinku waxaad tihiin gun annagu waxaan nahay gob waxaas inaan midna aan la odhanin laakiin la yidhaahdo gobol waliba wuxuu la soo baxo ayuu leeyahay degmo waliba waxay qabsato ayay leedahay dhalinyaro waliba waxay qabsadaan ayay leeyihiin in sidaa loo fikiro marka gobolka togdheer inay u diyaar garoobaan martigelinta dhalinyarada ee gobolada bariga doorka soo socda iyo tababarkana waxa u diyaar garoobaya gobolka saaxil ayaa tababarkana aanu ku qornay sida u bixin lahaayeen iyaga u taala reer burcana iyaga u taala sida u martigelinayeen dhalinyarada marka gobolada bariga aan dhalinyaro ka keenayna ilaa iyo ceerigaabo ilaa iyo laascaanood waa laga soo kaxaynayaa waxa la isugu keenayaa halka tababarka greenhouse-ka iyo tababarada kale ayaanu siinaynaa marka la siiyo ayaa haddana waxaa lagu soo xidhayaa mu'tamarkana oo martigelinaya togdheer insha allahu tacaala wixii ka dambeeya haddii la arko in barnaamijkaasi faa'iido yahay mar baa loo wada qaban karaa gobolada oo dhan sanadkii mar baa loo asteyn karaa وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته موضوعنا مدرس كان وراء tilmaameen inaan ka hadlo oo ku saabsiisan celebrations ama dabaaldeg ama ixtifaal loo sameeyo waqtiyadan aynu hadda joogno oo iyagu ay ula baxeen Christmas and New Year waqtiga Christmas-ka u yaqaaniin oo 25 December ah iyo New Year oo ah 1 January المسألة تاني runtii si marka loo eego mas'alo iska fudud oo qof kasta aqal leh uu garan karo waxaynu isweydiin karnaa su'aal oo maxaynu la dabaaldegaynaa waa maxay waxaan loo dabaaldegaynaa
waxa isweydiin leh taariikhda bini aadamka maanta la hayo dabaaldegyadii ugu horreeyay la tilmaamay sanad guuro loo dabaaldego waxay yidhahdeen waa dabaaldegiyaday dabaaldegi jireen nimankii la odhan jiray papillion nimankii deganaa dhalinyarada ee gobolada ilaa horta ka abaalmariyo Sheekh Saacid iyo culimada soo abaabushayba iyo dhalinyarada soo abaabushayba waxaan leeyahay horta Ilaahay ka abaalmariyo maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan mar haddii dhalinyartii reer Hargeysa oo isku wada duuban maanta ay yimaadeen gobolka Gabiley ee martidu yihiin Gabileyna ay si qurux badan oo aad iyo aad u qiimeeyo qaab badan ugu soo dhaweysay waxaanu rajeynaynaa insha Allah in gobolada kale iyagana insha Allah aanu gaarsiino Papillion Mesopotamia Ciraaqdii qadiimka ahayd caasimadeedii Papillion la odhan jiray dadkii deganaan jiray waqti hadda laga soo wareegay 4,000 sannadood waqti ku dhow ayaa dabaaldeg bay samayn jireen ku beegan xilli macna samaynaya iyaga agtooda dabaaldegoodu wuxuu bilaabmi jiray gugu markuu dego waqtiga guga ama waqtiga gaalada oo yaqaaneen infernal exconix oo ah springku ama gugu marka uu bilaabmo bisha ku xigta gugu markuu bilaabmay waqtigii guga la gaadho dayaxa koowaad ee dhasha ayay dabaaldegi jireen waa kuwa nimankana kristanku dayaxa koowaad ee dhasha jimcaha ku xiga waa long friday axadda ku xigtaana waa easterkii yani waa kuwana nimankana masiixiyadu dabaaldega kuwa weyn waqtigaasi nimankaasi guga ay dabaaldegi jireen macnay samaynayso waxay u arkayeen inay tahay waqti dib u soo noolaanshiyo noloshu ay bilowday oo roob u da'ay oo beerihii dib ay u falanayaan waxay dabaaldegi jireen baa la yidhahdaa 11 maalmood oo maalin walba ay wax gaara qaban jireen dhaqanka caynkaasi macno lahaa لكن كود جانوري محي معنا صبينيسا woolstar.com ويب سايت كان كلامه وحليله astronomically معنا ماله agriculture beerahaan ma aha buu leeyahay waqti roob doo macna ma sameeyo waba jiilaal ku daa waqtiyadu bilaabmay astronomically wax la xisaabiyo ma aha macna male kowdan January ee dabaaldega la sameeyo mala waxa ku fiicnaan lahayd in marka hore calendarka waxoogaa idinka idhaahdo January iyo February dan iyo sanadkan xaga ka yimaadeen ama calendarka waxa loo yaqaan dunidu calendarka kala nooca ayay tirsataa calendarada ugu qadiimsan ee dunidu ay tirsan jirtay waxa ugu horeeyay kuwii maxay inta taariikhda hadda la hayo waxa ugu horeeyay kuwii ay lahaayeen Ancient Egyptians oo ku koobna xidigta la oran jiray bay yiraahdaan Cyrus iyo cadceedu markay meel ka soo wada baxaan bay ka bilaabi jireen waxaana lagu tilmaamaa inay 360 ama 365 maalmood sanadkoodaasi uu ka koobnaa 12 bilood oo misodona uu ka koobnaa taa macnaheedu waa 360 shan casho dheeraad bay markaa ku dari jireen oo la yiraahdo waa shantii cashe feestada markii dambana bil gaar ay ka dhigeen oo bisha 13aad ay ka dhigeen waa masaladan wali Ethiopia si haysata meesha ka tagtay kiniisadda Coptic ay tirsato waa dhagay ka timid marka la eego Greegu wuxuu tirsan jiray calendarka ka gedisan laakiin dayaxa ku xidhan kadibna isku dayeen inay cadceedda ku xidhaan oo dabeetana Metonic cycle-ka waxay odhan jireen ay ku xidheen oo 19 sannadood oo laga tiriyo cadceeddu inay la micno tahay 235 lunarka ama 235 bilood oo laga tiriyo dayaxa laga tiriyo waxa kale oo la isticmaali jiray oo iyana jiray yani bilaad dheeraad u dhexdhexeeyay bilahana sanado gaar ay ku buuxiyeen kanaynu imika hayno asalkiisu waa kii Roman calendar-ka ahaa kan Gregorian calendar-kii Roman calendar-kii buu ka yimid Roman calendar-ku asalkiisa wuxuu bilaabmi jiray guga wuxuu bilaabmi jiray March 10 bilood oo quraabay yaqaaneen waxay yaqaaneen bil la yiraahdo Martius Aprilis May Junius Quintilis Sextilis iyo afarta dambe oo sidooda loo tiriyo September October November December waa Latin language-kii hore September waa 7 October waa 8 November waa 9 December waa 10
lixda bilood hore magacyay lahaayeen afarta bilood dambana tirada caadiga ah bisha toddobaad sideedaad sagaalaad iyo tobnaad inkastoo imika inay sideed iyo sagaal inoo ahayn dib loo raray haddana waxay iyaga u ahayd nooca kan jiilaalka markaa kumay darin kalendarkooda waqti baraf iyo mushkilada ka dhacdaba ahaan jiray waqooyiga Yurub taasi oo dhan saadaradeed jiilaalku magacna ma lahayn tiro go'aanna ma lahayn Romaniskaasi wuxuu ahaan jiray sanadkoodu 304 maalmood buu ka koobnaan jiray waxa la yiraahdaa boqorkoodii la oran jiray Numa ayaa wuxuu bedelay in uu 2 bilood ku daro oo yidhaa war baashaan 12 bilood ka dhigno labada bilood xageen ku darraaba la yidhaa waxa la yidhi December iyo March dhexdooda aan ku darro xal loo bixinaya bisha koowaad February aan la baxna buu yidhi talabaadna January aan la baxno sanadkiisina wuxuu ka dhigay 350 ilaa 350 maalmood inta u dhaxeeya haddana markay taariikhdu maraysay bay yidhaa 450 BC-ga ay yidhaahdeen labada taran isweydaarino January waxay ahaan jirtay bisha labaad ee sanadka 450 BC-day dib u soo rareen waxay yidhaahdeen January aan ka dhigno bisha koowaad ee sanadka oo February aan ka dhigno bisha labaad ee sanadka oo aan dib u rarno sidaas markay qaateen ee muddo ku wadeen ayaa waxa la yiraahdaa Julius Caesar ninkii la oran jiray ayay nimankii la talin jiray waxay yiraahdeen sidana si fiican ma aha aan kalendarka hagaajino boqortooyada kalendarka markay doontana hore u dhigi jirtay markay doontana dib u dhigi jirtay 46 BC markay maraysay ayaa kalendarkan cusub ee loo yaqaano Julius calendar ayaa la sameeyay oo ah ka kooban 365 maalmood iyo rubuc maalin buu isagu isticmaalay 365 maalmood iyo rubuc maalin oo macnaheedu u jeedeen ay rabeen inay waafajiyaan tropical yearka sanadka cadceedu gurguritaankeeda inay waafajiyaan ay rabeen laakiin iyana error ba calculationska ka galay saasi daraadeed ayaa waxa looga soo guuray karimka loo yaqaan maxay Gregorian calendar taasi hore dhowr meelood qalad baa ka galay kow inta ay u qaateen tropical yearku inuu yahay waxay leeyihiin calculationkaasi uu qaldan yahay oo ma aha 6 saacadood inta dheeriyo way ka yarto 5 saacadood iyo waxooga saasi daraadeed 128 sannadood ba hal maalin oo dheeraada soo baxaysa 128 sannadood marka la socdaba maalin baa dheeraad ku noqonaysa oo maalin dheeraad oo aan jirin baa la tiriyay bay leeyihiin saa daraadeed qalad baa ku jiray waa midda labaad anyhow waa laga soo guuray waxa loo soo guuray Gregorian calendarka Gregorian calendarku waa boobkii sideedaad kiniisadda Catholiga ee Gregory loo oran jiray ayaa wareegto soo saaray markii loo sheegay in arrinkan uu qaldan yahay ee nidaamkan cusub la degay ee ah nimankaasi shayga labaad ay qaldeen Libyar ku ahaayo qoladii u xisaabinaysay sanawaadkii hore dhan Libyarka 3 sanadood mar bay xisaabin jireen marka waxa la ogaaday in maalmo dheeraad inay ku jiraan 12 casho dheeraad ah marka kalendarka dhexdiisa ku jira saadaradeed baa dib looga guuro waxa la yiri Libyarkana si fiican ha loo saleeyo oo ah inuu 400 ba u qaybsami karaan qaacidada oo tii hore ka gedisan hal laga saarana maalmihii dheeraadka ee qaladka ku soo galay oo 128 maalmood 128 sannadood ba hal maalin oo dheeraad ah ku jiray 365.242190 bay dhahdaan weeyaan laakiin isagu 0.25 buu isticmaalay taasa qaladka keentay bay dhahdaan 1582 October 4 markay maraysay ayuu wadaadka boobkii soo saaray wareegto sheegaysa October 4 in lagu xigsiyo October 15 inta ka dhaxaysa waaba jirtay laga boodo qaanuun cusub uu soo saaray markaa sheegaya October 4 iyadoo la joogo in loo guuro October 15 qaanuunkaasi waxa qaatay dawladihii ahaan jiray Catholic gaar ahaan Faransiiski Spain Portugal Italy iyo Jarmalkood dawlado tiro badan ahaa qaybihiisii Catholic ahaa Netherlands Switzerland inkastoo Jarmalka iyo Switzerland iyo Netherlands iyo la yiraahdo sanad kadib ay ku soo biireen laakiin kooxda hore qaadatay Jarmalka qaybtiisii Protestantka ahayd way diiday qadiyadaasi Julius calendarkoodii hore ay iska joogeen
1700 markay taariikhdu maraysay bay guureen ingiriiska iyo mustacmaradihiisii maraykan iyagu waxay ka daba guureen 1752 markay maraysay ayuu ingiriisku qaraar soo saaray September 2 oo ahayd maalin arbaceed ayuunbaa kalendarka waxaa lagu xigsiiyey khamiista ku xigtaa inay noqoto September 14 kalendarkii meesha ku dhijisnaa baa laga dhigay September 2 oo khamiisa oo arbaca khamiista ku xigtaa inay noqoto maxay 14 September oo intaasi la soo boodo raashanka iyo kuwaas way iska diidanaan raashanka wuxuu aqbalay 1918kii ayuu isna January 31 markuu marayay ayuu isna soo boodsiiyey markaasuu yidhi February 14 baa la marayaa maalintii ku xigtay markaan eegno tirada tan ma waxay ku xidhan tahay ciise iyo dhalashadiisii kuma xidhna inkastoo la yidhaahdo waa Christian Rossi iyo ama AD ama waxa la isticmaalo kuma xidhna waa qarnigii 6aad baa lagu xidhayba 5 qarni iyo dheeraad iyadoon taaba la xasuusnayn BC-gii sidii loo waday un 1 looga soo guuray AD-ya oo yidhaahdaan 0 numberna Yurub ma yaqoonin oo iskaga booday ayaa waqti dambe lagu xidhay ciise dhalashadiisii ciise dhalashadiisana cidiba garan mayso ciise dhalashadiisa waxa ka warrama waa quraanka iyo bible-ka laba ka mid ah bible-ka labada ka mid ka warrama waa Matthew iyo Luke labada kale kama warramaan Matthew iyo Luke-na way isku khilaafsan waqtiga ay sheegayaan waayo Matthew wuxuu sheegayaa waqtigu ciise noolaa inay ahayd waqtigii Herodos uu ka talin jiray Romanska Herodosna waxa la yiraahdaa taariikh ahaan inuu dhintay 4 sano ka hor taariikhdan aynu hadda tirinay 2000 maraysa 4 sano ka hor inuu geeriyooday 40 sanadoodna waxba xukumayay ka kale haddii taariikhdiisa la qabto waxay noqonaysaa 6 sanadood kadib idan bishuu dhashay daayay ciise sanadku dhashay baan cid garanaynin bishuu dhashay ka kaalaya sanadku dhashay meel lagaga nabo ayaan isaga taariikh ahaan lahaynin quraankuna ma sheegin kitaabka masiixiyadu haysataana isna ma sheegin bilaha iyo magacyadoodaas tirada badan lana January-dan aynu sheegayna January afkooda yani macnay ku leedahay waa maxay waa two-headed god of doorway and gates bay yiraahdaan ilaahay labada madax lahaa ee albaabada iyo wadooyinka ayay January la macnatay waa ilaahay caabudu jireen noocaasiya February waa macno nooca ku dhadhow waxaan oo dhan markaad eegto waa ilaahay magacyadood March waa ilaahay dagaalka April waa kelmad Latino to open yani waa bilow May marka la eego waa ilaahada roobka iyo maxaa la yiraahdaa guga ama koritaanka waxaankaasiya June waa ilaahada wisdomka iyo marriage-ka bay yiraahdaan July waa Julian calendar-ka ninkii sameeyay magaciisa ku darsaday ninkii isweydaariyay February iyo January markii hore February soo horreysay January ku xigtay August baa isweydaariyay dabeetana bil buu magaceeda la baxay oo wuxuu yiri Julius Caesar bisha ku xigta July anna magacayga ha la igu daro bisha ku xigta Augustna waa boqorkaasi isweydaariyay afartan dambe aynu tirinaynaa de markii horeba waa qaldaynoo waa bishii 7aad iyo 8aad iyo 9aad iyo 10aad imika laakiin ma aha waa maxay October markaynu September ka bilowno September waa bishii 7aad laakiin calendarkeena waa bishii 9aad October waa bishii 8aad laakiin calendarkeena waa bishii 10aad idan horta calendarkan la hayaa waa nooca kan maadaama calendarkan uu noocan yahay waxa isweydiinta leh waxa weeyaan maxaa loo dabaaldegayaa waxaan aynu u dabaaldegaynaa waa noocma kiniisadda markaynu eegno iyo waxa ay ka rumaysnayd sanawaadkeedii koowaad kiniisaddu calendarkaasi Julius Caesar uu sameeyay oo si uu u waafajiyo tropical year-ka sanadkii koowaad ma taqaana waxa laga dhigay yani 46 BC-gii sanadkaasi wuxuu ahaa 445 maalmood 365 moohayna 445 maalmood baa laga dhigay si guga waqtigiisii loo waafajiyo March 21 meelahaas inuu ku soo beegmi karo ee la yiri sanadkan aan tiro badino 15 bilood wax ku dhadhow bay ka dhigeen dabeetana waxay u isticmaaleen noqdo sanadkaasi 445 maalmood inuu noqdo kiniisadda marka la eego aragtida kiniisaddu waxay ahayd inuu tahay waxa allaale iyo waxaasi la sameeyay paganism ama shirki inay tahay 1 January 25 December waxoo dhan waxay kiniisaddu waagi hore u arkaysay inay mas'ala shirkiya tahay oo aanay marnaba ku banaanayn diin ahaan laakiin
sida uu dhigayo maalan encyclopediahan ingiriisku sida uu sheegayo mu'arikhiintu waxay isku waafaqsan yihiin buu leeyahay haba yaraatee ciise horta taariikhu dhashay inaan cidi garanaynin waa marka labaade ixtifaalkii koowaad ee loo ixtifaalaba ciid ilmasiix 336 meelahaas inuu bilaabmay waa marka saddexaade waxa laaliya waxa ixtifaalka la sameeyo oo dhami inay ahaayeen dhaqamo ay lahaayeen gaaladii hore sida geedka hadduu yahay geed baa jira ay la wareegaan oo Christian tree ay ku tilmaamaan oo shamac iyo wax la sursudho geedkaasi asliyan Chinese-kii hore iyo faraacinadii hore iyo waxa ay isticmaali jiro alxayaat alkhalida iyo waxbuu tilmaamaabay oran jireen waxa ku soo biiriyay gabigiisaba geedka kan jarmalka qarniga 14aad meelaha mise qarniga 16aad ayuu geedka kan bilaabay iyagoo marka hore waliba fikrad kale loo bilaabay qarniga 17aad baa ingiriiska gaadhay geedka gabigiisaba marka la sheego si kale markaanu tilmaamno waxa laaliya waxa la wadwado ee laga soo bilaabo Saint Claus ama Baba Noel waxa Francisco yiraahdaan oo ah odaygan gadhka cad leh ee maryaha cascas qaata ee baashin barafka la dul jiida dul ordaya ee sideeda maxaa la yiraahdaa ghazal ay ka hayso ay rumaysan yihiin inuu ka soo daadego guriyaha halkan yara sare ee qiiqu ka baxu ka soo galabay yiraahdaan habeenkii 25 December tahay dabeetana kijadu gala midfaada halka raashinka lagu kulayliyo guriga midfaadiisu taga halkaas oo carruurta sidii leetal khadarka Soomaalidu ay sheegtay habeenkii guda oo kale iyana guda dabeetana halkaas wax dhiga oo ay carruurtu ka qaadata iminkana dadka waaweyn baa sameeya oo sidiisa leeg oo isticmaala iyana waa caqiido hore qadiima oo Yurubta waqooyi rumaysnaan jirtay marka la eego horta 25 December asliyan wuxuu ahaan jiray ciidii loo ciidi jiray cadceeda Yurub waqooyigeeda dadka degaa waxa waqtigaasi waa madow dabeetana ilaaha cadceeda la yiraahdaa la bariyaa inay soo noqoto marka ixtifaal weyn oo loo dhigaa buu ahaan jiray in cadceedu dib soo noqoto sida uu sheegayo encyclopediahaasi ingiriiska ahi waxa uu tilmaamayaa markii ay wadaadadii boobabkii arkeen Romanskii oo fikradan qaatay oo ay aad ugu ballaaran tahay dhigitaankan la dhigayo xafladaha kan ay waxay isku dayeen iyaguna bal diinta inay meel ka waafajiyaan dabeetana waxay yiraahdeen maynu kaba dhigno ciise dhalashadiisii ciise lama garan hada goor u dhashay afar qarni baan kiniisadu waxa ka diidaneed waqti ku dhow qarnigii afraad bartamihiisii bay bilaabeen inay yiraahdaan Christmas Day aanu ictiraafno oo 1 January maxaa laga dhigay markaa qolo kamida kanaaysta qaybo kamidi waxay yiraahdaan waa maalintii ciise la guday balagta laga jaray qolo waxay u qaateen January 1st inay noqoto maalintii ciise balagta laga jaray qolo kale waxay yiraahdeen maya dadku buu dabaaldegay oo xagay ka timi 1 January in la dabaaldego waxay yiraahdaan markii hore waxa loo dabaaldegi jiray gugiina de March buu ahaa dhexdiisa waana tii Babylonianka iyo Romanskii hore ay dabaaldegi jireen laakiin Romansku markay calendarkii qaldeen ay nooca kan u dhigeen ayay ka dhigeen in 1 January la dabaaldego dabeetana tii Romanskii qaldanayd baa lala qaatay dabeetana waa la dabaaldegay 1 January astronomically macna ma leh oo wax qiimo ay sheegaysaa ma jirto seasonada marka la eegana waa seasonka ugu liitaba macna uu sheegaya ma jiro waa jiilaal sida ogeed wax loo dabaaldego meesha yaala ma jiraan markaan soo duuduubo masalada tani waxay ku salaysan tahay inay isku dayeen nimankii wadaadadii kiniisadu inay isku dayaan inay markaasi wadaadadii kiniisadu waxay isku dayeen inay dabaaldegan sameeyaan waxaan uga socday waxaan oo dhami waxa weeyaan koow dabaaldegani waa dabaaldeg mushrikiin leedahay marka koowaad waa marka labaad waa mushriga waxa ku sii raacay Kristan wadaadadii Kristanka ee diintoodii markay ilaalin kari waayeen iyana dacalkay kaga dareen waa ku raaceen hadday labada kooxood isku raaceen inaga qiimuhu inoo leeyahay waa maxay asliyan waxyaabaha ay sameeyaan markay dabaaldegayaan waa waxyaabahaasi aan soo tilmaamay koow waxay yiraahdaan nasiibka ayaa la eegaa oo waxay rumaysanayeen caadadaasi ay rumaysanayeen waxay sheegaysay reerka oo dhan in la ururiyo dabeetana habeenkaasi la dabaaldego dabaaldega marka la samaynayo
January bay dhahaan kowdeeda qofka kuugu horeeya kuu soo galaa hadduu nin dheer oo tima madow noqdo bay dhahaan nasiib wanaag bay sheegaysaa wax kale hadday kuu soo galaan laakiin dhib bay sheegaysaa waxay isticmaalayeen oo dhaqamadaasi ka mid ahaa in ilmo yar la qaado oo salad lagu rido kor loo qaado ilmahan yar berigii hore waxa iska lahaan jiray Asian Egyptianiski iyo Chinese-ka labada kooxoodba way lahaan jireen qoladana waxay dhahaan Jesus ba u bedelo ilmaha yar inuu Jesus yahay oo isagana hal la qaado ilmihii yara waa la qaaday geedkii qolada yar lahayd waa la soo qaaday habeenkan in la soo jeedo khabri badan la cabo waa la sameeyay marka maanta la eego Christmas-ka iyo dabaaldegiisa iyo January kowda iyo dabaaldegeeda dunida maanta dhib bay ku haysaa yani waxay tilmaamaan inta wax ay gubata inta khamri la cabo inta khasaare la geysto waa ayaamo loogu talagalay in bini aadamku waasho ay hadda u egtahay anoo iska soo koobaya waxaan leenahay mowqifka inagu aynu ka taagnaan karnaa muxuu noqon karaa mowqifku iska cad yahay waxa uu cad yahay waxay tahay awalan islaamku waqti la ciido uu soo koobay laba waqti quraan ku koobay waa labada ciidood ee islaamku yaqaano labada waqti la ciidaa munaasabad bay leeyihiin waa laba rukniyo arkaanta ugu waaweyn islaamka kamida marka ay dadka muslimiinta dhamaystiraan oo ah rukniga xajka iyo rukniga soomka inay dadka muslimiinta ciidaasi la yimaadaan wana kii xadiidka saxiixa nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi tilmaamay markuu Madiina yimi iyagoo laba maalmood ay cayaaraan lebu u yimi markaas wuxuu yiri ma hadaan al-yawman labadan maalmood la cayaaraya maxay waxay dhaadeen kunna nalcab fiihima fil jaahiliya waqtigii jaahiliyada ayaanu labada tan cayaari jirnay nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu ku yiri inna allaha qad abdalakum bihima khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu idinku bedelay labada tan laba idinka khayr badan idan nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu tilmaamay labadan in la bedelay laba ka khayr badanna lagu bedelay labada ka khayr badan ee loogu bedelayna inay labada ciidood yihiin waa labada qura shariicada islaamiga ay sugayso wax allaale iyo waxa ciid ka soo hadha ama mawlid nabi ha lagu sheego ama rajab ha lagu sheego ama diin ha loo nisbeeyo ama gaala ha loo nisbeeyo ama cid kale ha loo nisbeeyo waa waxba kama jiraan yani ciid kale oo islaamka soo arooray oo yaqaan haba yaraatee ma jirto wuxuu ku soo koobay nabigu taasoo qura waana tii xadiidkii Aisha ay sheegaysay inuu Abi Bakar soo galay iyadoo laba hablood oo ansaarta kamid ay ka ag heesayaan oo labada hablood hadda kuwa heesa ma ahayn bay Aisha leedahay yani dul fan u baxay oo heesa sida kuwa aynu naqaano ma ahayn laakiin laba dumar oo ala fitratihim isaga heesaya ayay ahaayeen Abi Bakar baa ka xanaaqo wuxuu yiri ma mazaamirtii shaytaanka baa gurigii nabiga aad la soo dooratay maalin ciideedna way ahayd nabigu wuxuu ku yiri ya Abu Bakar إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا لام كانوا اختصاص شيء يبو نبي استعمال إن لكل قوم عيدا واردول ولبع عيد يمالنا احتفالان بودان بيلي يبو نبي كوري وهذا عيدنا كم بانا أنك أمحي عيد يدي ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ويان أما ولكل وجهة هو موليها عيد والله سبحانه وتعالى ينصق واكا أما عيدها كالصهرة waxay yihiin intooda badan tashabuh ama ku dayasho lagu dayanayo gaalada iyo ku dayashadooda waxaanu naqaanaa in adilla badan ka soo aroortay oo reebaysa inaynu ku dayanno marka ay yahay mutlaq tashabuh wala radi umur muayyana in laga daydana wala radi ciid in laga daydana wala radi in oran karna أولاً إلهي سبحانه وتعالى القرآن كوحي نقول برين من كاسي وضضي مران إنه إلهي كبرين إننا مرين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما لو البإلهي وحين ويدي سنة كواس المغضوب عليهم يا ولا الضالين يهودية كريستان كي مران إن أنا لكم مرين أياد مالك استوي دي سنس إذن وأدلة المامسة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات نصوص تربضا وقرآن بالله صاح الشريعة ننكيب البلارين وقبهانه اقتضاء صراط المستقيم لابن تيمية
kitaabkaasi oo dhammaantiiba ka warramaya uun ciidaha iyo waxa la mida iyo gaalada ku dayashadooda uunbuu kitaabka gebigiisaba sheekhu u qoray ha uu raajico waxaynu naqaanaa inuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum duul ninkii ku daydayda ee isu ekaysiiya iyaga ayuu la mid yahay buu nebigu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa kaaga filan inuu nebigu tilmaamay la tatabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibr wadiraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin latabactumuuhum xadiidkii saxiixaynka ku yaalla macruufka ee nebigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kuwii idinka horreeyey jidkoodii baa raaci doontaan buu nebigu leeyay taaka iyo dhudhun markaasuu nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hadday god masalugalay galaan dabku waa masacgalay nooc ka mid oo aan teenan ahayn teenan malaa waral baa la yidhaahdaa laakiin tuka yaryaroo carabtu dhankeeda u badan weeyaan waa la family god masalugalay hadday galaan buu nebigu yidhi waa ka dabagelaysaa isweydiinta waxa ay tilmaamaysaa in taqliid acma muslimiinta uu ku dhici doono waxa uu xadiidku tilmaamayaa xataa waxaan macno samaynayn in lagaga dayan doono haddii la odhan lahaa hadday dayaxa qabtaan waa ka daba boodaysaan waxba may ahaateen oo markay dayaxa u guuraan inaynu ka daba guurayno laakiin nebigu wuxuu leeyahay hadday god masalugalay galaan waa ka dabagelaysaan god masalugalay maxaan madow iyo qurmuun ahayna uu leeyahay yani masacgalay godkeed intuu leegiye maxaa qiimo uu leeyahay yani xadiidka waxa uu tilmaamayaa waxyaabaha aan macnahaba lahayn ee nolosha qiimaha ku samaynaynin ee wax bini aadam laga qaato ahayn ee caqliga saliimkii xataa aanu keenaynin in lagu raaco inaad ku raaci doonto idan christmas day iyo jubileum iyo maxaa la yidhaahdaa kowda january waa dhaqamo asliyan shirki iyo mushrikiin ka yimi markii dambena uu kristaan qaatay foolxumadaasoo dhan isagoo wada leh haddaad adna sii daba gasho waa juxru dabkii uun kama gedisna waayo waa waxaan noloshaadana macno ku lahayn astaan gaaleedna ah waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo kuwan aanu raaci doonnaa alyahuuda waannasaara miya ma yahuud iyo kristan baa qaala faman buu yidhi oo yaa kale aad raacaysaa waa xadiidkii abi saciid alkhudri kii abi hurayrana waa kii tilmaamayey ka farisa waruum miyaabay ku yidhaahdeen faqaala waman innaasu ilaa ulaa'ik oo dadba waa ayaan kuwa ahayn buu nebigu leeyahy labada xadiidba uu ku dabaqmayaa ninka intan raaca waayo romaniskii uu nebigu ruumkan uu xadiidka ku sheegay iyo nasaaradu xadiidka hore ku sheegay labaduba maanta way isku sii raacsiisan yihiin intan dambe ah maxay 25 December-kan Christmas-ka ah iyo maalinta ka sii dambaysay January kowdeeda waxaasoo dhan markaynu isku darro waxa ay sheegayaan in mamnuucu yahay qofka muslimkii inuu waxaasi ku daydo waxa uu nebigu sii tilmaamay nimankan mukhaalafadoodu حلالية وحان منفع سمين المخالفة دودو إني من الدين بطي بل أشياء قاربوا النبي تلمامو يلقوا كو خلافة مثلا وحول النبي إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم محن يستان ومع يستان خلافة أبو النبي يقولي ويدنكم محي صبغي قاسي السماية خالف المشركين احفوا الشوارب ووفوا اللحى النبي يقول ور مشركين تخلافة وشهروا تنقى بصدق قد كان لبحا والنبي يقول لي خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم واليهود خلافة أبو النبي يقولي وهي كباهكم التكدان يدونكم كباهكم التكدان يا خفاف كينبا كواسي وحي شيء أشياء قارة التلمامي حتى أوصاف العبادة وصلاة صلاة حقا لا لقبطة سو إلهي لو بتكريو صلاة إلهي وتكري سيئة تودا يدين كا كان نبا إلهي هدي عبادة اللي يريد إلهي كاقا كان عادات كم حاضو مالين صبركا عاداتك يوحانا منفعة بالهين يعني خير بكو جرين عبادة دي بقى اللي خالفوهم oo iyay salaadaadu tooda way kaanin iyadu kaba ku tukaba lagu yiri khifaafkaaga gasho si aad iyaga u khilaafto gadhka xinaysa baa lagu yiri madaxa si aad iyaga u khilaafto waxay tilmaamaysaa oo nabigu salawaatu ullaahi wa salaamu alayhi uu sheegaya inayna nimanka inaynu ku dayanna ahayn ciidahooda iyo xafladooda inaynu ku dayanin nusuus badan baa laga dalishan karaa nusuusta caamka aan sheegnay waa laga dalishan karaa nusuustii tashabbuha sheegaysay waa laga dalishan karaa تفاسير توا لقد دليشان كرا حتى مفسرين بدنوا السلف ككمدة أي واحد كفسرين آيات القرآن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
oo sanadadu ka asaxay waxay ku tilmaamayaan ibnu siriin oo kale wuxuu leeyahay waa shacaaniinka waa ciid kristanku leeyahay mujaahid oo kale wuxuu ku tilmaamayaa waa acyaad almushrikiin waa gaalada ciidahooda oo kale buu ku tilmaamayaa الربيع ibn anis oo kale wuxuu leeyahay waa acyaad almushrikiin mufassiriin badan oo salafka ka mid ah ayaa waxay leeyihiin shuhuud zuurkan la sheegayaaba ee aayadda quraan ay sheegaysaaba waxa ay ku fasirayaan inay tahay ciidaha gaaladu ay leeyihiin idan qofka muslimka ah maadaama uu nabigu xadiis saxiixana uu dakuleeyay war ilaahay labadooda maalmood waa idinka bedelay bal ee waxaad garan kartaa xataa booska nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh xadiis saxiixa nin baa u yimi wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan ku nadray meesha nawaaf la yidhaahdo inaan xoola ku qalo ayaan ku nadray markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi bawaana meesha la yidhaahdo buu yidhi inaan xoola ku qalo ayaan ku nadray nabigu wuxuu ku yidhi hal kaana fiiha wathan min awthaan aljaahiliya yucbad meeshan aad leedahay xoolaan ku qalayaa miyuusanam ooli jiray buu nabigu yidhi jaahiliyadii hore ay caabudi jirtay markaasuu yidhi may hal kaana fiiha ciidun min acyaadihim buu nabigu yidhi haddaama meelay ku ciidi jireenoo wakhtiga ay ixtifaalaadka ku dhigan jireen miyay tay markaasuu yidhi may nabigu markaasu wuxuu ku yidhi awfi binadrik haddaba fainahu laa wafaa linadrin fii macsiyati illah walaa fii ma laa yamlik ibnu aadam nadarkaaga iska oofi buu nabigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh lama oofiyo nadarkii macsi alle ku saabsiisan ama reer nebi aadam wixii aanu haysanin ku saabsiisan xadiidkani muxuu sheegayaa wuxuu nebigu saxaabiga kan u diiday istifsaar wuxuu ka weydiiyey meeshan uu ku nadaray inuu xoolaha ku qalayo inay ama ciid qolo gaaleed ay lahayd ama meel sanamooli jiray ama waxaasi inuu ka mid yahay ayuu nebigu u diidayay taasi waxay sheegaysaa markaa ciidna waa ismu jins kelimadu makaan iyo zamaanba waa lagu ictibaarin karaa saa daraaddeed maalintana waa la odhan karaa waa meel ciideed makaankana waa la odhan karaa waa kii nebigu xadiidku tilmaamaya ilaahu qabrigayga ha ka dhigin maxay ciida meel lagu ciidaha ka dhigin jimcahana waa kii ciidda ku sheegayay zaman iyo makaanba way noqon kartaa idan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi maadaama uu saxaabiga kan uu markuu yidhi nadar baan oofinayaa uu su'aalaha kan weydiinayo istifsaarkan waxa laga fahmayaana uu yahay inuu diidi lahaa hadday waxani waxaa waafaqdo waxay sheegaysaa inaanay waxa kani bannaanayn walidaalik markaynu soo koobno waxaan leenahay ummadda muslimiinta ah taariikhdoodii hore nawriij iyo ciid kiristan iyo mid majuus iyo mid kale midnaba inay sameeyaan uma bannaanayn manay samayn jirin salafil ummana lagama arag bale kuwan iminka diinta lagu soo daree diinta laga dhigay ayaan ummaddii hore muslimiinta ahayd aqoonin yacni kuwan mawlidka nebiga ama caynkana isaga laftiisu taariikhdee la hubaba maaha marka koowaad oo nebigu inuu isniin dhashay unbaa la hubaa laakiin ma 12 rabiicul awwal bay ahayd ma 8 rabiicul awwal bay ahayd ma 9 bay ahayd culimada taariikh waa taqaaneen aqwaasha tirada badan ee laga sheegay waa ra'yiga ugu tirada badan ee 12 rabiicul awwal ra'yiga sheegaya laakiin inuu isniin dhashay ayaa ah waxa koowaad la hubo على كل حال ده isaga laftiisa waxaynu naqaanaa محمد بخيت المطيعي مفتي مصر ee hore sida uu soo naqlinayo iyo rag badan oo kalaba inay dawla al-Abidiyya ama Faatimiyiintii Masar inay tan laftiisa bilaabeen Faatimiyiintii Masar waa kuwa ku tilmaamay Ibn Kathir inay ahaayeen taariikhda islaamiga dadkii ugu sharka badnaa dadka midayna yihiin waxaba lagu tilmaamaa koodi koowaad bilaabay inuu yahuudi ahaa reer aalubaytka sheegtay مصر 280 sanadood bay ka talinayeen 14 boqor oo iyaga kamid ah iska dhaxdhaxlay waa wadooyinka inta istaagaanba dadku u sujuudi jiro waa lagu qasbi jiray qofku markuu la soo agmaro in sujuud loo dhaco waxa uu sameeyay 6 maalmood oo la ciido say taariikhyaanadu tilmaamaan maalin Caliya maalin Faatima maalin Xasana maalin Xuseena maalin Nabiga iyo maalin boqorka meesha haysta maalmo kalena wuu lahaa laakiin 6dan waa 6dii ugu caan baxsanaa bay ahaayeen waxay sheegaan wadaad irbil joogi jiray bargii dambe ku kadsoomo masalada tan sameeyay oo ninkii koowaad ee dadka ahlu sunnah sheegtay masalada tan ku dhawaaqa baa la yiraahdaa soo koob waxay leenahay gaalada waxa qure bannaan in lagaga daydaa waa waxa uu xanfaca waxa qure bannaan in lagaga daydaa waa waxa uu xanfaca ee ah مثلا aqoontan cilmiga bini aadamku kala dhaxlay aqoontan horta gaala ma laha yurubna ma laha
waa dhaxalkii bini aadamku ilaa aadam uu soo kala dhaxlayay qolaba waxay ku soo dartaba ama ninba inuu soo raaciyaba waa wixii reer nabi aadam soo kala dhaxlayay laakiin iyana intooda in la dafira maaha in weyn bay ku dareen in weyn oo aad uga weyn inihii la hayay ayay ku dareen intay qoladan muslimkii huruday mashkiladda taagani markaa waxay tahay intii macnaha samaynaysay cid ku dayanayso le aan kaga dayanna arki maysid intii macnaha samaynaysay oo ah aqoontaas iyo wixii loo baahnaa cid kaga dayanaysa cid hadal haysaatoona ma jirto intii laga reebayna waa la wada daba socdaa oo dawladda shacabka dadku kowda January waa la soo fasaxaya Christmas-ka la soo hambalyeynaya ka baa la sameynaya inta diin la'aantaana waa laga dayanayaa intay diintu sheegtayna waxaad moodaa in la rabo in la baalmaro ama si aan lagaga dayan hadday tahay in Christian ama Yahuud ama Majuus ama gaal kale waxa laga qaadan karaa waa waxa wax anfaca waa waxa si basharka ka wada dhaxeeya dhaxalkii reer nabi aadam wada leeyahay waa waxa si aqoonta waa waxa kitaab ilaahi alla dunida tan waa abuuray daraasada lagu sameeyay cilmiga xaqiiqiga taas oo waliba aynu leenahay waa in laga jafjafaa aragtiyaha badan ee aan diinta waafaqsanayn dabada lagaga sii nabay iyadoo laga jafjafayo waliba kaana aynu u baahanay inaynu qaadano ama inaynu Christmas iyo Happy New Year iyo April Fool iyo wixii la noocay inaynu ku dayanna waa diin la'aan dadkana in loogu yeedho maaha dawladaha muslimka ku abtirsada ama sheegtaana ma yahay inay fasaxaan dad muslima iyo in fasax laga dhigta iyo in wax u dhowtoona laga dhigo iyo in la weyneeyo midna ma ahaateen idan inagoo dood badan ba laga yaabay inaynu ka wadno kuwii diinta loo nisbeynayay kuwa aan diinba loo nisbeynay diin gaaleed loo nisbeynay bal gaaladii kristanka ay isku sii waafaqsan tahay diinta wataniyada inay ka timi inaynu tii wataniyada ka timi u dabaal degnaa waa waxa aad u liita tii wataniyada ka timi inaynu u dabaal degno idan kalendarka January ka bilaabay marka horeba macna badan ma sameynaynin marka horeba sliyan baanu macna badan sameynaynin laakiin dabaaldegiisuna aqallu ma yumkin waxa ugu yar oo yimaada waa xaraan waxa ugu yar oo yimaada bay yiraahdaan waa inuu xaraamaha ku dhaco walidaalika waxa iskaga soo koobaya maadaama mawduucu iska koobayay aanan hadal badan ba rabin waxa ku soo koobaya warbaalka dabaaldegiisu khayr kuma jiro wixii manfac uu ku jiro hal la qaato wabillahi tawfiiq إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا الشيخ إلهي هكأبال مريو انتينا سؤالها قلين وحينوها الشيخ موسى وقبل لحدينا قد يدن الشيخ إنه قوى رمي علينا كسله حاجة دبائن سؤال ماشي يلا انتو دبضاني وموضوع كما صافسنا waxaana jeclaan lahaa un hadii aynu wax ka jawaabayno in mawduucu ninku saabsan hadaa fatwo doonaysaana waxaad tagtaan maxkamadda dirir iyo Sheekh Ismaan ay fadhiyaan wixii fataawiye iyaga bixiya insha Allah taala su'aal baa wuxuu sheegayaa Boxing Day-ga ka waran AIDS Day iyo Boxing Day iyo Christmas Day waxba isma dhaamaan waa isla wada wixii uu maalmaha Ilaahay la kala wacaamadiyay wax badan ma sheegaya midna dabaaldeg ma leh سؤال كلا وحليه هاي نكتايجا كورن نكتايجا ما لا سؤال شيء سيم كويس كوبضت الشالي نبي دبل يجسوا يديني نكتاي كورن شاو عمر فاروق بالوجود النكتايجا كورنو وحول ده هدو مريا هنا ولو حرقوا ذا نبودوا أكو حرقوا كرتان دوح كليه هنا سكتورة وحول مركا دوح كرنو يسنتي بكو حرنت تريغاني حقو كيما ما جيت كان كريسماس كوي وضان جيت كوانجي شيغي على كل حال وعادو كتمي قالدا كله ما ها عاده كريستيان كو صله كريستيانتي جيت كلنا حديد ملها
laakiin waa geed ay samayn jireen dadkii romanskii hore asalkiisana faraacinadii hore iyo kuwa la xidhiidha ayaa laga soo qaaday su-aal kale iyana xiirxiirnimaadkan foodadheerannimada ah iyana ka warramaysa waa iska garanaysaan un dee horta qofka bini aadamkaah yuu ku daydaa su-aasha ayaa ka jawaabaya suuqa hargeysa intaad marto mid waalanoo xashiish cunaya haddaad aragto oo raamaysto kudaafadda fadhiya bas odhanaysa allayle sidiisa isu ekaysi maya waayo waad xaqiraysaa socaynkaa maaha markaaad is leedahay cod ku daya ayaad ku dayanaysaa cidaad is leedahay way ku dhaantaa ama waxbuu ku dheeriyay ama aad cid isbidaysa baad is leedahay iska dabagee socaynkaa maaha dee waxay ahayd qofka muslimkii nebi maxamed iyo saxaabadii iyo kooxda inuu iska dabageeyo cidda aad adigu kuu ah misaalka sare ee la rabay inaad ku dayataa waxa weeyaan nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisi iyo dadkii saalixiinta iyo ummaddii wanaagsanayd ama wiil yaroo kubadda laada ama filim dhiga ama kudaafad kale ah kudaafadaha caalamka maanta tviyada laga soo muujiyo mid ka miduuna oo dhafoorada xiirtay haddaad aragtay inaad adna waagu markuu baryo dhafoorka soo xiirataa waa iska dullinimo yani waa shakhsiyad la'aan waa adigoo aan lahayn identity aan wadanin waa adigoo aan qof jira ahayn haddaad si fiican kaa yar u daraasayn lahaydna kumaad dayatayna waad ka cadhoon lahayd yani noloshiisu noocay tahay ama siduu u fakerayo ama caqliga ku jira inta uu leegyahay laakiin rag baa ku xoogsanaya maadaama ay bahashii xoogsi noqotay wiilkaa yare ciyaala suuqa ah ee la yidhi adinkaagaad 40 milyan ku qaadanaysaa rag baa ku xoogsanaya dadka ku waalaya calaa kulli xaal dhafoora xiirxiiratu sharcadu waxay noo tilmaamaysaa madaxa in la wada xiiro iyo in la iska wada gaabiyo iyo in la wada daasto wax ka dhexeeyaa ma jiraan qazacu tii soomaalidii baadiyuu samayn jirtay berigii hore waa dhoorraa odhan jirteen laakiin imika dhoorranimadaa jeceshiin yani berigii hore reer miyiga waa xaqirayseen markaad aragto inan yaroo miyi ka yimi oo dhoor leh waxaad arkayseen ilmo yaroo dhoorraa inuu yahay oo yani qof reer baadiyey laakiin dhoorro yaroo kristana markaad aragto oo magac kale la baxay waad kaga dayanaysaa yani waa caqli laawanimada soo kordhay mawliidka buu leeyahay ma saxaabadii iyo dadkaasa ka tegay maye birthday wax la yidhaahdaba islaamku ma leh mawliidku waa birthday soo maaha waa maalintii dhalashada shareecada islaamiga wax maalin dhalasho la yidhaahdo kuba jirtaaba ma jirto saa daraaddeed ama nebi ha ku saabsanaato ama cid kale ha ku saabsanaatee maalin birthday la yidhaahdaa waa dhaqamada ka yimi uun xagga gaalada dhaqamada ka yimi asliyan ayay ka tirsan tahay su-aalo kale oo iyana aan kasii fogayn gadhka la bixistiisiiyo ka dee waxaan moodaya inaa hadda soo dhaafteen gadhka ma lala baxaya mise lala bixi maayo gadhku waa sunnihii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa sunno rijaalnimo iyo ninnimo sheegaya iyo dariiqii dadkii wanaagsanaa ay mareen idan in gadhka lala baxaa diinta islaamka ka mid tahay in la xiiraana waa mamnuuc su-aalo kale oo iyaguna iska khaarij almawduuca sex education iyo wax la nooca ku saabsiisan ma jecli inaan ka jawaabo su-aal aanan garanayn baa iyana ku jirto aqallaxu ma bannaan yihin man reer miyaa idinku jiraan su-aal qallaxii dee geela la qallixi jiraan u malaynaya un inay tahay ka warramaysa marka in sha allahu sheekh dirir baa weydiin doontaan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu